Maanta muuqaalkeenu wuxuu ku saabsanaan doonaa cigaal shidaad. Cigaal shidaad waxa uu ahaa nin fulay ah laakiin caqli badan. Fulinimadiisu xad dhaaf ayay ahayd, laakiin wuu caqli badnaa. Ninkii cigaal maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa uu arkay col soo socda oo ku soo socda gurigiisa, kuwaasoo rabay inay dilaan. Cigaal intuu cararay oo gabadhiisii u tagay buu ku yidhi, "Naaheedhe, hararkaasaan isku duubayaaye, col baa soo socda waxaad tidhaahdaa, cigaal shidaadow, col hortii jabay, ama iga dul barooro, iga ag oy, ama iga ag barooro, oo dhe shalay toole ayuu dhintay." Oo waxaad tidhaahdaa markaasi, markay ku yidhaahdaan maxaad la ooyaysaa, waxaa iga dhintay cigaal oo wuxuu go'ay shalay. Kadib colkii oo yaacaya ayaa soo galay gurigii. Kadib waxay arkeen gabadhii ooyaysa. Kadib waxay ku yidhaahdeen, "Maxaa kugu dhacay?" Iyadoo oohintii weli wada oo aan afkaba kala qaadin, oon u sheegin colkii inuu cigaal dhintay, ayaa isla cigaal oo ku duuban harar ayaa wuxuu halkaa ka soo yidhi. Waxa uu yidhi intuu afka kala qaaday, "Shalow go'ay dhe, shalow go'ay dhe."